asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh soo dhawaada dhammaan akhyaarta ku xiran barayga bulshada habeenka ha idiin wacnaado ayaan idin leeyahay waxaan kusoo jirnay barnaamijyadii ama muuqaaladii aan ka duubeynay box calvert buundada looga tallaabiyo wadooyinka biyaha waxaan rabaa intaan u gudbin ka hor qodobada aan ka hadlayno afartii qodob ee soo dhaafnay qof kasoo jawaabo afarta qodob ee ka horeysay shanta qodob ee insha allah qodobka shanaad iyo qodobka lixaad aan nooga hadli doono muuqaalkeenan caawa hadda waxaan sameynayaa jekin inta aan la shubin ka hor waxaan sameynayaa quality control shaqadii sidii loogu talagalay loo qabtay iyo in kale ayaan hubinaya birta spacingkeeda formworka qaabka loo sameeyey biraha qaabka loo dhigay waxaasoo dhan baan hubinayaa kadib contractorka ayaa shubi doona insha allah marka jaamacad free aan ku haynaa meeshan oo practical university la yiraahdo marka waxaa weeye lectureka iyo lessonka laydin ku wariyaa jaamacadda isaga practical aan siinayna marka formworkaas waa formworka bottom slabka waana qaabku u ekaan doono box calvertiga qeybtiisa hoose marka formworkaasna waa la xirayaa insha allahu tacaala waana shubi doonaa markaa shubkan u yaalaa labadaas qodob ayuu ku saabsan yahay muuqaalkeena waa kan hadda saddex isbaagaa xiran oo ujeedaa isbaagaa centerka iyo labada geesaha ah birta splay pariska waa waxa uu yeeraa marka waa kana qodobka koowaad qodobka shanaad installation of formwork waa ka alwaaxaas weeye for bottom slab installation of formwork for bottom slab ayaa wuxuu yahay qodobka shanaad marka 1 ilaa 4 commentiga igula wadaag haddaad ila socotay marka formworkaas ayaan soo xirnay wakaa biraha splay pariska noocaas ayay ogyihiin oo soo sameynay buskud ayaa ku jiro ama cover blocks waxa loo yaqaano team ayaa commentiya raise gareeyay rectifying ku sameynayo oo xalinayo markaas soo dhawaada khiyaarta waa kan hadda shubkii ayaan bilownay marka bal isku day inaad ila socotid processkan ilaa aan ka dhamayno waxaan rajeynayaa inaan qodob aan u qaadi doono marka isku day inaad saa ila socoto qodobka lixaad casting concrete for bottom slab qodobka lixaad maxaa waaye waxaan shubaynaa bottom slabka hoose yacni maadaama waxaan quality loo yeelayo la isma raacinayo wallska iyo bottom slabka waxaad ogeedeen qodobadii hore waxaa ka mid ahaa blinding inaan soo shubnay oo 100 mm ah 100 ama 10 cm aan soo shubnay shubka marka waa 25 waaye thicknesskiisa fabricator baa la isticmaalayaa fabricatorkana waa compactionka concrete weeyaan marka waxa waaye glass 25 ayaan isticmaalaynaa ama grade 25 ayaan isticmaalaynaa shub qualitygiisa fiican waaye laakiin wallska glass 30 ayaan isticmaalaynaa glass 30 shub aad qualitygiisu adag yahay marka akhyaarta qodobkaas ayuu ku saabsan yahay muuqaalkeena marka waxaan leeyahay dhammaan ardayda Soomaaliyeed kusoo dhawaada practical university casharada lagu dhigay lectureka iyo jaamacadka ayadoo practical ay siinayaan channelkan ku taxan isku day waxyaabaha soo dhigay inaad si fiican u fahamto si baarto aadna si fiican u daawato aragtid maqal iyo muuqaal marka this is practical university practical free university marka inaan dad Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed injineero Soomaaliyeed in halkan ku dhisno ayuu yahay ajandaha naga koobaad iyo labaad iyo saddexaad marka saas ayaa u sameynaa wakaa formworkaas noocaas u eg ayuu noqon doonaa box calvertiga qeybtiisa hoose qeybta corona shapekaas oo kale ayuu yeelan doonaa marka insha Allah taala qodobada kalena way noo xigi doonaan marka labada qodob ee ka hadlayna muuqaalkan uu ku saabsan yahay maxaa waaye installation of formwork for bottom slab qodobka lixaadna maxaa waaye casting concrete for bottom slab shubkan isticmaalayno waa glass 25 thicknesskiisa waa waxa waa 25 cm weeyaan ama 250 mm marka soo dhawaada ayaa idin leeyahay team adag ayaa ka shaqeynaya meeshan rag xirfadlayaal ah rag engineer ah rag dhalay ayaa joogo marka halkan oga waa ardayda Soomaaliyeed ku soo mention garee ku tag garee page-ka subscribe saara halka wada YouTube channel-ka subscribe saara marka ardayda Soomaaliyeed la wadaag la u share garee halkan ayaan insha Allah taala idin joogaa soo dhawaada ayaa idin leeyahay
muuqaalo kan iyo kuwa kasii xiiso badanba badanaa la xiriiro highway engineering ama road construction ayaa noo soo socdo. marka waa qodobka shanaad iyo qodobka lixaad ee Pocos Calvert ayaan kasoo hadalnay. qodobada kalena waa u gudaguli doonaa insha Allah muuqaalada soo socdo. aada u idin salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Finishing ayaan sameynay marka aada salaamayaa.